dalkeena waa dal madax bannaan oo xur ah oo muxuu ahaa Kenya horteed xurnimada helay ma aha maanta inay Kenya ka dhigato wax fudud oo maalin kasta ay meel naga soo farageliso oo aysan u aaba yeelin madax bannaanida dalka marka way soo laalaabatay runtii waayahan dambe Kenya fududaysiga ay fududaysanayso Soomaaliya madax bannaanideeda waxaan leenahay arintaas ha ka waantoodo annagana si wada jir ah go'aan u qaadano dawladdeena haday tahay golaha shacabka haday tahay golaha wasiirada haday tahay maxaan ku iraahdaa safiirada dhamaan uu ku mahadsan yahay safiirka go'aanka uu qaatay waayo wuxuu muujiyay matalaad dhab ah muxuu ahaa wax aan la isku ogeyn in ay meesha yimaadaan go'aankii uu ka qaadan lahaa qof bini aadan ayuu ka qaatay إن شاء الله تعالى دولتنا أرنتاس وأي محوها بجادينيسا أننا وان كوب بجادينينا رنتي إن قامضا نوع عصا بسيرجا أو قاطع هدي قفك متلادي سنة كم تهاي دبتة اللغة فدية مركتاسنا أنت سيان كلا هاي منا أقبل الدون إن أرمها صول لابتان وصح بدحوينه إنه حكومة باقي صومالي هشيسة dunidana heshiis la waana ku mahadsan yahay madaxweynaha in uu u gogol xaaro heshiis dhab ah oo caalamka lala yeeshto taas macnaheedu ma aha inaan ka tanaazulayno madax bannaanidayna iyo qiyamkeena inaan ka tanaazulayno macnaheedu ma aha wax alla wixii heshiis ah ee lala yeelanayna walaalaheen muxuu ahaa Somaliland waxa nooga masuula runtii oo arintaas heshiiskeeda iyo go'aankeeda qaadanaya madaxweynaha iyo guddigii madax bannaan ee loo xil saaro oo arintaas qaabilsan inay ka shaqeeyaan laakiin ma aha wax aanan ummadda Soomaaliyeed ka heshiinin Kenya iyo cid kalaba in ay anaga noo meeriso ama ay noo hoosgeliso midna ma ogolaan doono bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM